Why did Nike write Allah subhanahu wa ta'ala at the bottom of their latest sneakers, guys? Take a look at this image. A'udhu billah. السلام عليكم اسمها الليلة waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo wax inta badan Soomaalida ay ogeyn dad og way jiraan dad badan aan ogeynaa jira aan marka i dhageysta waxa la buubuumiyo aniga sida runta kama helo ma jecel wax la buubuumiyo because waxaan ogahay sababtu waa meel fog baan aniga wax ka eegaa marka waxaan la buubuuminayo arrintan waa arrin aad looga naxo magaca alla inay ku soo qoraan Nike ama Nike Mareykan haddaan nahay annaga Nike ayaan u pronounce gareynaa dadka Yurubna joogay iyo Ingiriiskana waxay u pronounce gareeyaan Nike iyo Africa xataa Nike waa shirkad weyn lacag badanna ka samaysa qaasatan black people especially African Americans ay ka samaysaa lacag aad u badan marka dad badanna adduunka way ka iibsadaan marka productskooda waxay suubiyeen si aad u caqli ugu jiro siday u gadaan siday uga baxsadaan waxaan la yiraahdo BDS kama aragta boycott divestment section dadkan lagu soo dadka BDS ka waa cunaqabateen dhanka dhaqaalaha looga hortagayo in la iibsado wax waliba oo Israa'iil support gareeya aad bay successful u noqotay laakiin hadda waxay barteen siday bypass uga suubin lahaayeen uga gudbi lahaayeen marka laakiin ayagoo sida bypass uga suubinay at the same time waxaad arkaysaa mararka qaarkood inay waxyaabo outrageous sidan oo kale ay sameynayaan isweydii sababtu maxay u sameynayaan waxay u sameynayaan aniga waan arkay waana lay tusay waxaa la rabaa bini'aadanka in la qalqaliyo trauma lagu suubiyo mar walbaan ka hadlaa traumada waa qalqal lagugu suubinayo because dagaal baa bini'aadanka loogula jiraa loogula jiraa dagaalkaasoo ah dagaal medical ah dagaal dhakhaatiirtan maafiyada ah oo ay u badan yihiin sahyuuniyiinta iyo dowladda Mareykanka kuwan xukuma oo ma aragta sahyuuniyiinta iyo eugenicska ah ayagaana militariga Mareykanka iyo Israa'iilba u adeegsada research labs ay leeyihiin oo la yiraahdo DARPA marka shirkadaha waaweyn oo dhan way ku xiran yihiin DARPA waa marka research labs ay ku suubiyaan teknolojiyada xad dhaafkada oo bini'aadanka la rabo in lagu isticmaarsado si sir ah si qarsooni ah waxaan sameeyay video kale aan kaga hadlaaya arrintan please daawo oo aan digniin ku soo qoray siday u fahmin waxaan ka hadlaayo sawirkayga anigoo faraxsan camal aan ku soo suubiyey video yaro anigoo qoslaaya camal marka waa digniin aad u weyn dadka inta badan lama socdaan dad badan ogna way jiraan dadka conscious-ka humaankooda buuxo qalqalkan hadda especially waxaan qaza ka socdo faa'iido badan baa ugu jirta qaasatan maxay u suubiyeen isweydii waxaan genocide-kan sida caddaanka ah waqtigan hadda covid kadib maxaa loo sameeyey because bini'aadanka ayay rabaan trauma inay ku suubiyaan marka AI-ga ayay rabaan inay isticmaalaan AI-ga sida bini'aadanka loogu xukumi lahaa waxay sameeyeen la yiraahdo nanotechnology particles yar cuntada lagu soo daro hawada la soo raacsiiyo sida bini'aadanka cellular level cutubka ugu yaro bini'aadanka jirkiisa ka suubsan yahay uu attach ugu suubiyo nanotechnology-gaas hadhow bini'aadanka loo kontrooli karo waan sharaxi doonaa laakiin dhageysta Soomaaliya dhageysta waxaan la buubuuminayo dareenkiina ha raacsiinina dareenkiina ma aragta ha raacsiinina because energy baa ka samaysannahay annaga energygaas bay u baahan yihiin energyga xanaaqa ah energyga naxdinta ah energyga cabsida wax waliba energyga low vibration wax la yiraahdo energyadaada hoos u ah energygaaga hoos ah ma aragta kuwan hoosta ah sida xanaaq wax waliba energy walba xun waa energy hooseeya energyada sarana waa energyga fiican sida farxadda jaceylka galgaceylka raxmadda
waa waxa ilaahay kuu dhaweynaya waa emotionskaas ayay u baahan yihiin maxay u baahan yihiin isweydii waxay u baahan yihiin in muddo ah waxay sameynayeen technology darba waa defense advanced research project something I forgot abbreviation wuxuu u taagnaa but anyway waxay in muddo sameynayeen xataa Elon Musk shirkadiisa Neuralink way ku xiran tahay marka shirkadaha waaweyn oo dhan Amazon Microsoft gedigood way ku xiran yihiin khaasatan kuwa technology-ga waxay rabaan energy-gaaga sida loo isticmaalo trauma lagugu suubiyo qofkii trauma lagu suubiyana jirkiisa ka furfurmaayo difaacu ilaahay kuugu talagalay ayaa furfurmaayo nanotechnology-gaas markay sidaa kuu qabsato waxaa fududaanaysa hadhow sida bini'aadanka loo kontrooli lahaa maskaxdiisa iyo siduu wax u arko perceptionkiisa maskaxda mind controlka iyo perception controlka waa waxay CIA in muddo ah ka soo shaqeynaysay in muddo ah aniga dhibaatada igu dhacday waan ka sheekeeyay video kalaan suubiye soo daawo videogaas haddaad doonaysid inaad ogaatid waxyaabahan aan ka hadla traumada dadka sida ugu suubiyaan marka aniga mar hore maankayga buuxsame mar hore indhaha layga qaaday runtaan ogaaday mar hore alxamdulilah waxyaabahan xagdhaafka oo naxdinta ah especially now adduunkii dhan wuu isku soo xirmaday social mediaga iyo internetka bini'aadanka o dhan waxay helayaan energy aad u badan especially hadduu negative yahay oo energygaas yahay waxay darsayaan these are waxyaabahan waa waxyaabo waa projects military ah oo ma aragta surveillance ah kuwan Israa'iil iyo Mareykanku way isku xiran yihiin surveillance technology-gooda biomedical wax la yiraahdaa jiro taas ayaa waxa ugu muhiimsan tahay budgetka ugu muhiimsan saddex qaybood markii loo qaybsho sida idin sheegay budgetka difaaca Mareykanku 800 oo bilyan ah hal meel ayay geliyaan researchka marka Soomaaliya taas ogaada waxaad ogaataan COVID-ka kadib markay COVID bini'aadanka vaccine-ka ay ku talaaleen waxay kugu talaaleen wax jirkaaga furfuraya difaacaaga daciifka dhigay difaacu alla na siiyay because annaga jirkeenna sidaan idiin sheegay hore video kale idinku sheegay wuxuu ilaahay na siiyey waa mucjiso jirkaaga ku jirta wax waliba dhibaato walba oo jirkaaga loo geeyo ilaahay wuxuu uu siiyey awood jirkaaga uu regenerative ku suubiyo dib isku soo dhiso siduu isku soo dhisayaa dib isku soo dhisayaa haddaad soontid cunto afkaaga gelinin biyo kaliya aad cabtid biyahana ogaada biyaha kaliya oo la cabaayo faa'iido kuma jirto biyaha waa minerals inay la socdaan biyaha liin dhanaan ku dar markaad cabaysid liin dhanaan ku dar iyo milixdan ay dhahaan Himalayan salt dhahaan in yar ku dar ha badinin in yar ku dar I know it tastes funny laakiin waa caadi waa jirkaagaad u baahan marka Himalayan haddaad haysanin waxaa ku dari kartaa tan la yiraahdo sea saltka ku dar markaad ku dartid waad luxaysaa biyaha saasaa u luxaysaa bisinka qabso quraan ku akhri biyaha tahliil camal markaa cab ilaah marka insha Allah aniga hadda waxaan rabaa inaan suubiyo horta qaasatan channelkayga waxaan u furay waxay ahayd marka hore inaan kashifo crime-kan ama dembigan layga galay oo systematic ah markii chipka lay geliye markii lay torture-gareeyay because beenta iyo corruption-kii baan banaanka soo dhigay way target garaysteen haddana medically inay igu tababartaan rabeen because immune system-kayga aad u adag aniga qof aad u adag baan ahay alxamdulillah ma fududa sida lay defeat gareeyo sida lay xukumo maskaxdayda loo xukumo aad bay isugu kay tageen lacag aad u badan baa lay geliyay dadka Seattle jooga qaar badan oo Soomaaliya xitaa ka qayb galay aniga xusuuqayga iyo targetkayga orame u badan yihiin laakiin Ethiopian iyo madowga kuwan madowga waa laba qolo ana sidaan idin sheegay Mareykan madowgooda waa laba qolana aad noo nacab oo maskaxda laga haysto oo kaniisadahooda waxay ku soo akhriyaan dhageysta iyo TV-ga iyo waxyaabo kaloo been oo Afrikaanka looga sheegay laga soo program gareeyay ay ka aaminsan yihiin iyo ayagoo marka horeba dadka madow waa dad xum ah waa dadka ugu fiican Mareykan sida runta laakiin dambi badan baa laga galay marka trauma badan ay ku jiraan qudhooda marka Trump ayaga waxay ku ciil baxsadaan dadka Afrikaanka ah
because waa dad la soo gumaystay, waa dad la soo adoonsaday. afrikaankay ku ciis baxsadaan. soomaalidana aad bay uga xanaaqeenba horta markay soomaalida dheheen anaga madow ma nihin. dadkan soomaalida aniga waxaan dhihi lahaa kibirkan joojiye. ilaahay dadka kibirka badan ilaahay ma jeclo, sida runta ah. dadkan wadankoodiyaa timaadeen, dadkan si fiican oo la dhaqma, ayagaa qaar ku necebba, sida runta ah. kuwaas ku neceb baa hadda loo adeegsanaya, weligoodba waa loo adeegsan jiray. dowladda maraykanka nin madow kala dilaya markaad maqasho waa wax dowladda maraykanka, waa project CIA ka dambeysa. markaan ka hadli doonaa, hadda ma doonaa inaan inta waxaas kaga hadlo. laakiin madowga labay u qeybsan, aan ku noqdo pointkayga. madow kuwana necebo hadda anaga loo adeegsanaya inay soomaalida si sira ahaan u taargad garaystaane xusuuqa ka qayb galaan oo militariga dadka xusuuqayan. anigoo kale hadda dad badan oo madow baa ka qayb galay oo aad u badan, xataa been iga suubshay oo ku jira militarigooda, ku jira kuwa sirdoonayaasha, ku jiro booliiskooda Seattle meesha, xataa soomaalida been usoo sheegay. iyo madow aad u fiican oo conscious ah oo ka soo jeeda dadkii weligood usoo dagaalami jiray oo weligood la defiid gareynin. kuwa la defiid gareeyo neutralize laga dhigayo maskaxda laga kontroolay waa kuwan xun oo dadka soomaalida hadda aad uga maseero u neceb. marka aniga waxaan dhihi lahaa xataa kuwaas dad xun ma aha, sida runtooda ah. waa dad traamo lasoo geliyo, lasoo ciila, waa ciil dad ka buuxa. marka ciilka inay dad ay ku baxsadaanay rabaan. soomaalida waa dadka ugu fudud hadda lagu ciil baxsan karo, waana muslin, waana dad qurqurux badan oo san dhuuban oo timo jilicsan oo waxyaabo muuqaal ay ayaga jecel yihiin ay leeyihiin soomaalida. haddana soomaalida at the same time waa dad kibir badan. marka aniga waxaan dhihi lahaa soomaalida kibirkooda mushkiladu ilaahay dadka kibirka badan ma jecla. caro ilaahay nagu dhacday ayay noqonaysaa haddaan kibirkan iska joojin weyno. ta kale waxay tahay soomaalida, qofka soomaaliga siduu u fiican yahay markaa wada sheekaysataana haddana waxyaabo kalaa ku siima maqan. annaga naftirkeenna qabyaaladaa nagu dhex jirta, kibir iyo waxyaabo kale ma aragta, mashquul waxaan ku nahay wax aan faa'iido noo sameynin, sida runta ah. waqtiga soo socdo adag hadda lasoo mari doono, dad badan baa ku rafaadi doona, sida runta aan aniga ogahay soomaalida u badan yihiin, because waxay mashquul ku yihiin wax faa'iido ayaga ugu jira naftooda. kibir oo aan ma aragtay sal lahayn. qofka hadduuba lacag leeyahay wax meel sare gaaray, hadduu kibir badan yahay waxaa la dhihi karaa qofkaas kibirka wuxuu u leeyahay because qofkaas waa qof tagay. qofkii soomaaliga asagoo refujiyo qofkan wadankan imaadayo haddana systemkan dependent ku ah, haddana kibirkan ma fiicno walaalayaal. marka ta kale waxay tahay ogaada waxaan soo socdo waa wax fudud ma aha, waa wax muddo badan laga soo shaqaynayay. hadda pointkaan rabe inaan idiin sheegaba waan iloobay because madowgaan sharxayay. pointkayga wuxuu yahay energyga jirkaaga, energygan aad bixinaysid markaa xanaaqdid ama markaa faraxdid, iyo waa wax fududaynayo technologygan hadhow sida maskaxdaada loo kontroolo. caruurtiina ka digtoonaada telefoonkan ay haystaan, yay ku seexanin telefoonkan ayagoo haystaan. hooyooyinkaan la hadlayaa khaasatan, caruurtiina mindful ka ahaada sida u isticmaalayaan telefoonkan. markay rabaan inay emergency camal u isticmaalaan ha loo ogolaado, iyo markay rabaan inay ku suubiyaan homeworkooda iyo waxyaabaha ayaga faa'iidada ugu jirto. laakiin waxyaabahan kaloo dhan ma aragtay waa wax geedka bahalkan cellphonekan waa wax maskaxdaada bedeli kara, sida runta ah. maskaxdaada capable wuxuu yahay inuu akhriyo, haddana uu ku soo daayo EMF, electric magnetic frequency, wax frequency ka soo baxayo, shucaac ka soo baxaya jira cellphone-kan. waa military, waxani waa weapon, waa aslixa, waa ma aragta maxay dhahaan, waa weapon cellphone-kan, especially haddaad smartphone haysata. waxaa ka soo baxaya shucaac maskaxdaada bedelaya chemical ma aragtay brain chemicalkaaga, maskaxdaada chemistrygu ku suubsan yahay. ilaahay wuxuu ugu talagalay chemistryga ku suubsan yahay. hadduu maskaxdaada uu bedelana waxa u imaanayo qofkii depression, waxa u imaanayo qofkii qalqal maskaxda uga imaanayo, dhibaatooyin badan oo dadka bini'aadanka soomaalida hadda la kulmaan. waa bahalkan indhaha sidaa loogu hayo. ta kale waxay tahay cellphoneka wuxuu akhriyaa indhahaaga iriska ma aragta,
bahash indhaheena baliisha madowda ku jirto oo indhaheena visionka aan iriska bahashan ka arko uu iskaan garaynaya markuu iskaan gareeyo indhahana waa gatewayga bini aadanka laga xukumi karo marka indhahaaga iyo maskaxdaada iyo jirkaaga waa target taa ogaa Soomaaliya taas ogaada waxyaabahan la buubuuminayo waxa kalaan u jecleen waxay tahay wuxuu program ku suubiyaa qofka bini aadanka wuxuu kugu suubinayaa program ina attentionkaaga spankiisa uu yaraado mar waliba aad fiirsid wax aad loo buumbuumiyo especially markay negative tahay span attentionkaaga energygaaga wuu yaraanaya sabarkaaga yaa yaraanayo waxaa badanaya negativityga jirkaaga soo galayso iyo maskaxdaada soo galayso waxaa badanayso qalqalka iyo stresski waxaa badanayo waxaa hoos u dhacayo difaaca jirkaaga uu iska difaaci lahaa wax waliba banaanka ka imaanaya waa shaytaan ogaada cellphone-kan iyo AI-gan waa jin waa technology jinniga leeyahay taasi been ma ah maalin dhow baad ogaan doontaan marka Mareykan dowladeeda iyo xataa Israa'iil waxa ay la shaqeeyaan waxyaabo aan aniga mar kale ka sheekeen doono laakiin hadda dad badan oo u dhaga furan way jiraan oo fahmaayo dad badanna waxay isleeyihiin waxaan waa qayaali qofkan miyuu waalan yahay muxuu ku hadlayaa qofkani saasaa isleedihiin intiina badan waan ogahay because maankiina ma buuxa weli diyaar uma tihiin waxyaabaha soo socdo aniga laakiin waxaan u soo furtay channelkayga sidaa idiin sheegay inaan kashifo waxa laygu suubiya haddana waxaan ku sii rabaa inaan u suubiyo Soomaalida inaan ku educate gareeyaan cilmi idiin soo gudbiyo waxaan aniga ogahay waxyaabaha idinka faa'iidada idinku jirta aan ahayn qabyaalada iyo qurunkan kale ku mashquulka tihiin salaamu calaykum